ninka lagu maqlo ninka lagu maqlo kama maqnide malawalka run kama maqnide malawalka run ninka lagu maqlo ninka lagu maqlo kama maqnide malawalka run kama maqnide malawalka run mataan ciideed gabayada la isweydaarsanaya way soo gaarayeen uu dhuuxayay wuuna ku raaxaysanayay wuxuuba raganimo u qaatay wixii uu falay wacays iyo xirsi jabane inay ku eedoobaan oo ay isku jabaan halyeegii ciideed buu isku haystee aar laga maagay inuu yahay ayuu isu aqoonsaday miinlaydii wacays tirshay ayuu kolbaa dib ugu soo ceshaa 3 meeris oo jeclaystay ayuu ka dhexelay mamakaawegeygaan galduur lala mushaaxayn mamataanka xidhan baa dartii loogu maari waayen nima jeertoo kaca miyaan magane loo waayin waa markhaati uu weligiiba wax badan sugayey waa erayo isla weynaantiisii caadda sare sii gaadhsiiyey waa 3 meerisoo kibirkiisii aada u sii labalaabay mamakaawigeygaan galduur lala mushaaxayn mamataanka xidhan baa dartii loogu maari waayen nima jeertoo kaca miyaan magane loo waayin kadib ayuu fariin u diray si uu makaawgiisu guddoonsiiyo wacays isaguna geesi hooyo dhashuu ahaayee taladiisii uu oggolaaday intuu sooriyey ayuu weliba lag u qalay dabadeedna intii uusan kuushiisii guddoonsiin ayuu u mariyey tixdaniyada 5 reer oo baxawaadle waa kala shisheeyaane ha yeeshee shaf iyo gowrac waa kala shishlaadaane rag baan sharad ku beeneehayn ee kuma shideeyene labadeen oo shaarugtaa iyaan shuqul xumaadeene hadday sharaf lahaayeen baryaan soo shafeecsadee adaan sheeyadii ku huree sharac allee qaado intuu yidhi ayuu 2 hal gacanta ugu riday waana maalintii qur ahayd ee mataan ciideed uu ugu talada fiicnaa muddo hadday mataan koor ugu taagneed falalkiisii guracnaa iyo magaciisiina meel walba gaaray ayuu maalintii dambe go-aan ku gaaray inuu guursado uu hawaa ku soo korodhay wuxuu jeclaystay inuu guursado salaado yuusuf waxay eedda rumaad u ahayd nimankii walaalaha ee gebi jiray waa weer bulxan iyo qamaan bulxan waa gabadh kibir iyo 9 nooc ee suuraha dumarka leeyihiin isku darsatay waa gabadh ragoo idil cagaha isugu dhufatay malaha adiguunbay ku sugaysee allaylehee maantuunbaa guur kuu egahayee doobnimo ku raag lama ammaanine orodoo istaadiyo guri yeelo sidaa waxaa naftiisa kula showray oo kula hadlay mataan dabadeedna reerihii gabadhu ka dhalatay ayuu u dadabgalay laysma waraysan oo laysma haybsan oo waa laysyaqaan waa xigto isku deegaan ah oo ceel iyo carshinba wadaaga hawraarsan baa codsigiisii lagaga jawaabay sidaas baana salaado yuusuf lagu bixiyey oo ninkii odayga ahaa lagu siiyey maydho geel
iyo gamaan uu faraskiisii fayd la baxay uu ku jiro ayuu goor barqaa reerihii soo agtubay oo yarad kaga baxshay. faarax xafey, cali dhan iyo nuur jiirba marweyntii ay salaada ka dhalatay oo ay xigtada ahayeen ayuu tacabkaasi xeryahoodii ugu shubay. raggu ha wada hadlo, gabadh halaysa siiyo, yaradna hala kala qaatee. talow salaado arrintu halkee bay ka taagan tahay? inuu mataan ciideed soo doontay oo habloo idil iyada ka soo doortay magalad bay u qaadatay. maye hadal hoose, hamham iyo xanta dumarka ay isla dhex marayeen iyagoo isku diraya ayaa waxay lahaayeen, oo horta ma ogtihiin inay salaado tiri waxa geyga rag ku dhaqan, maxaa talow ninkan inkaar qabaha ah iiga soocay? waxay ka ergeysay ninkaa habaar mooyee aan maalina dhankiisa duco loola jeesan in la weydaarsho oo la dhaafsho. waxay ka cabsi qabtay caruurta ay dhali doonto habaarka iyo inkaarta mataan ku ladhan inuu u gudbo oo faac ka faac uu ka hari waayo. ha yeeshee marnaba diidmo salaado uma banaaneen, waayo rabbi iyo rag wixii ay ku taliyaan dumarkii hore way raaci jireen oo kamaysan hor iman jirin. gugii gabadha inuu dhista la sugaayey ayuu ima waayey, fariinna ma soo dirin, xagaagii xigayna lama arag, dayrtii haddii la gaadhayna ma soo joogsan. wax la sugaba gugii saddexaad ayuu isa soo dhigay isagoo aan haba yaraatee wax cudurdaar ah xididkii iyo gabadhiiba aanu siin. dabadeedna waxba lama weydiine waxa loo dhisay aqal laba daryaala, qumbayaal subag iyo oodkac ayaa gasada loo dhigay. fardaha lagu dabaaldegay oo ammaantii gabadha lagu dheeraaday. dhalinyarada ayaa sacab, jiib iyo jaantaba isla heshay. salaadana goor fiid ah ayaa mataan loo guri geeyey. maxaase xigi doona? adaa yaabi doonee hayga hadhin ila socod. ninka aynu ka hadlaynaa waa mataan ciideed. wuxuu ku tashaday guurkiisa inuu noqdo mid taariikh gala oo aan marnaba liiloobin. sokeeye iyo shisheeyaba dad dhibaato waad u geysatay, weli itaal rag baa tahay, yaanu wacdarahaagu isdhimin ayuu ku tashaday. maxaase xigi doona? dabadeedna kolkii 3 habeen isaga iyo salaado qof walba uu midkood aqalka doc ka seexanayay uusan weli u galmoonin, ayuu fiidkii dambe daboolku u qaaday wixii laabtiisa ka guuxayay. salaadoy waxaan ahay boqorka ciideed, adna waxaad tahay boqoradda ciideed. boqor iyo boqorad inay isku galmoodaan maaha. walac, uur, umol iyo caruur kaa dabayuustaa maxaad ku fali? inaan sidaa ku wada noolaano, sheeda iska daawan, iskana sheekaysanno ayaa inoo balana. soo ama kaag iyo wax lala yaabo may noqon. foolxumo aan mataan ciideed rag ugu horeyn soo may noqon. go-aankaasi guracan ee xigmadda ku yareed salaado way ogolaatay, hadalna kamaysan keenin. waayo dumarkii hore waxay ahaayeen kuwo xishooda oo aan raggooda ku soo afcelin, gurigooda iyo gubashoodana aan marnaba ka sheekeen. ninka lagu maqlo, ninka lagu maqlo, kama maqnide malawalka run, kama maqnide malawalka run.
ninka lagu maqlo ninka lagu maqlo kama maqnide malawalka run kama maqnide malawalka run muddo ayay sidaa ku wada noolaayeen aqalkay u soo wada hoydaan way wada sheekaystaan kadibna kala seexdaan sidee baase markii dambe arrintan lagu ogaaday barbaartii dhallinyaradii waagii hore aqalgalkooda kadib waxay samaysan jireen tijaabooyin lagu ogaanayo barbaarkii isboobay iyo ka kale tijaabooyinkaasi waxaa ka mid ahaa orodka legdanka iyo bootamaaleysiga haddaba aqalgalkoodii markii ay muddo ka soo wareegtay ay dhallinyaradii beeshu bootin dhisteen inuu ka boodo geedihii laystultubay ayaa mataan loogu yeedhay ileen waa nin naaloon oo welihiis haystee si la yaab leh ayuu uga booday oo dila dhisay waxaa shakigiisii ballaadhay kolkii salaadooyadana goobta joogtay ay dhiskii si xarago leh isaga jartay uguna booday sidii gabadh shaabadoo kale durba bulaan baa bilowday dareen baa dhacay shakii xamxam baa beeshii ka dhex abuurmay kadib ayaa salaado waxa loo diray dumar soo wareystaa dhismihii aan maanta ogeen dherarkiisi intuu leekaa gabadhii ka booday waa arrin lagu cusub oo ugubee naabal noo waran ayay ku yidhaahdeen waxay xishootaba waxay jawaabta ka meermeertaba waxay kolba koona eegtaba ugu dambeyntii waxaa afkeedii laga helay aqalkii arooska siday ku gashay inay weli tahay shakigii xamxamtii iyo guuxii dadweynaha ayaa meel walbuu deegaanka ka mid isqabsaday waa nin godob badan bulshada ka galay oo loo ciil qabee waxaa lagu helay fursad macaan oo khatara oo weliba dahabiya godkiisii baa biyuhu soo galeen warmihii tuunka ayaa lagu halgaaday raganimadiisii ayaa calaamad su-aal la gashay oo waxaa lagu xantay inuu laga roono yahay xilligaasi ma jirin dhaawac ka weyn oo nin rag loo geysto oo lagu tuhmo inuusan qof dumara u galmoon karin waa bulsho ciil qabtay oo cabursaneydee warkiibay si farxad leh afarta koon ee jihada si degdega u gaarsiiyeen mataan ciideed guuxii bulshadaa soo gaadhay aad buu ugu xumaaday in raganimadiisii la duray oo calaamad su-aal la gashay inuu ka gelgesho ayuu damcay ha yeeshee eed kale oo kibirkiisii ka hakin waayay ayuu galay khalad ayuu khalad kale ku saxay geed la tuuran yahay oo dhalinyariyo waayeelba loo kala maqnayn ayuu soo dul joogsaday wuxuu goobtaasi ka tiriyey gabay sarbeeba oo salaado iyo hooyadeed uu ku bahdilayo isagoo gabadha faras ku tilmaamaya sodohdana geeyo ku maltahaya ayaa wuxuu yidhi inta geeda geelwaaqista ugu guduudroone haddee gaaji dili xoolihii goosan mahayaane garanuugta waan ugu necbahay gabi ugaadheede gaaraabidhaan laguma daro galowga haadeede golcasta sagaarugu daran guunyo dhaataduye waxba kuuma galo roobla dhuxu waana shay gobe galka sirow raacdada markii laysku soo gaadhay neef yahow guduudani midkii gaabiyaa tahaye guuldarrada waxa kugu wacan geeyadii hore isgudgudubkii xamarow maxaa golihii kaa raacay
bal malee kolkii ay tixdaasi shaacday wixii dhacay raggii geedka joogay sarbeebtii sow lama wada garan sow hoos looma wada jeesan oo nin u jiibiyey lama waayin in yar kadibna intii laysdhujibaa shirkiiba lagu kala dareeray odayadii ayaa mataan habaaray addimadiisii ayaan laga baxsan jirine carabkiisiina ma ku daray ayay ku cataabeen isla fiidhoraadkiiba tixdii baaneyd caan bay noqotay oo gabdhihii iyo wiilashiiba ku haasaawi jiray kolkay halgeela soo duwaanba gabdhihiibaa odhan jiray inta geeda geelwaaqista ugu guduudrone haddee gaaji deli xoolihii goosan mahayaan kolkaas bay wiilashiina odhan jireen neef yahu guduudani midkii gaabiyaa tahay guuldarradu waxa kugu wacan geeyadii hore salaado waxaa mar qura ku kulmay walwal walbahaar murugiyo walaac waxaase ugu sii darayd dumarkii deegaanka la dariska ahaa oo intay u yimaadaan iyagoo daacad iska dhigaya yaqaana qaybsanna gabaygii odhan jiray oo horta gabaygii hooyada loo jiray muxuu ahaa kolkaas bay mid ag taagani u marin jirtay maalintii dambey tashatay waxay gaadhay oo ay qaadatay qaraar go-aan ah aqalkeedii ayay si dhuumasho uga baxsatay oo reerkoodii ayay beegsatay intii ay labalaxaadsanaysay oo ay dugaagga ka baxsan lahaydna way ilmeynaysay iyadoo hadba kufaakacaysa ayaa waxay ku celcelinaysay naftu waa maqnow amase waa mahad ku noolowe miiskaan ahay waa hadduu mid u dhexeeyaye habeenka iyo maalintii xigay waxay orodaaba ayay fiidkii dambe goor caweysnimaa reerahoodii kusoo hoos dhacday waxay ku tashatay hadaloo adoo barooranaya oo ooyaya wixii lagugu falay ka sheeke ha yeeshee waa berigiiba waxay ogaatay in warkeedaba aan waxaysa loo hayn ileen rag baa baadigeel oo raacda ahaa ku dul joogay oo shalay reeraha yimid oo sheekadii iyo wixii ay ku sii dareenbaa degmada u soo tabiyey show reerkeeda iyo tuuladaba gabaygii waa laga wada xafisan yahay faarax cafey cali dhan iyo nuur jiir oogadooda meel la sara ma leh isagii ninkaasi inaan dunida guudkeeda aysan ku wada noolaan ayaa waxaa dhaar ku maray seeflaboodkii mucaaradkii da-dii salaado ka yaraa waa 20 jir nabad iyo badhaadho mooye aan weligii colaad iyo dhiig la daadiy u soo joogin odayadii ayaa ku taliyey mataan ciideed hadduu sidaa foosha xun ku kacay jifadii beeshiisa ha loo ergeeyo oo yaan godob sokeeyey lagu degdegin ha yeeshee dhalinyaradii mucaaradka ahayd ayaa garbaduub loo hayaa oo gadoodsan rag fara badan iyagoo cadhaysan bay shirkiiba isaga baxeen waxa taladoodii la raacay raggii ku taliyey mataan iyo jifadiisa inaan xaal iyo xumaantoona la weydiisan ha yeeshee uu salaado furo dhalinyaradii beesha ee mucaaradka ahayd iyagu go-aankaasi kuma qanacsanaa waxay aaminsan yihiin furiin waa halkiisee in mataan ciideed raganimo la tuso mataan wax la baryaba ugu dambeyntii ayuu yidhi yeelay waase haddii lay soo celiyo yaradkii aan ka bixiyey waxayna ahayd markii ugu horeysay oo mataan ciideed iyo rag ay wuxuun ku heshiiyaan goor barqaa ayaa xoolihiisii oo la wada loo keenay dabadeedna
goob loo wada dhan yahay oo aan cidna maqnayn ayuu kaga dhawaaqay inuu salaado furay. ha yeeshee ninka aynu ka hadlaynaa waa mataan ciideed oo aan qaban xeer ku yaal tolka ee lagu dhaqmo. goor casar gaaba ayaa reerihii salaado ka dhalatay waxa u yimid dhowr ninoo uu buraale ugaas maxamed uu horkacayo. isnabdaadin kadib waxay sheegeen inaanay reerahaba dhaafsiisnayn. isla habeenkiiba dantii socodkooda ayay sheegteen. buraale oo ogaaday in salaado la furay ayaa soo doontay, wuxuuna ahaa nin la yaqaan oo asluub leh. faarax xafi, cali dhan iyo nuur jiirba hawraarsan bay yidhaahdeen. isla habeenkiina waaba loo meheriyey, waxaana lagu ballamay guga dhow ee xili roobaadka ah in xilaha iyo xaragada la isweydaarsado. goodh arsamidia mataan oo geed hadheedhi hadhkii rag kula shaxaya ayaa niman socotaa assalaamu calaykum ay kaga naxsadeen. waa nin dhiilaysan oo dhagar iyo godob qabee intuu booday oo warmihii iyo gaashaankii hagaag u qabsaday ayuu nimankii deg deg u haybsaday. waxay goobta ka sheegeen wararkii ay mataan siiyeen ugu daraa. buraaluugaas inuu salaado soo doontay lana siiyey oo weliba loo meheriyey. nimankiibuu hadalkii ku celiyey oo mar labaad ka hubsaday, mar saddexaadna ka saxday, mar afaraadna ka xaqiiqsaday oo hoosta ka xariiqay. dabadeedna isla markiiba go-aan deg deg ayuu gaadhay oo wuxuu yidhi, intiina geedka joogtaay si wanaagsan ii dhagaysta. salaado anoo ifka ku nool nin kale ma geeyo. naagta uu mar magacayga ka dul yeedhay sidee aqal nin kale ay uga soo toostaa. nin dhiiran oo geedka wax ka fadhiyey ayaa ku yidhi, oo mataanow sawtii jilaalkii dhoweyd lalahaa salaado wuu furay. wuxuu ku jawaabay, haddii xitaa aan furo halkee buu ku nool yahay ninka guursan karaa oo naag kol meher iiga dul dhacay iiga dambayn karaa. qoyskii salaado ka dhalatay ayaa warkaasi loo geeyey. rag iyo dumar wixii maqlayba cadho ayaa degsiisay. tol beelaye xasan mataan miyaan rag loo hayn ayay dumarkii salaado ka dhalatay ku baroorteen oo ay ku cataabeen. ninka lagu maqlo, ninka lagu maqlo, kama maqlide malawalka run, kama maqlide malawalka run. ninka lagu maqlo, ninka lagu maqlo, kama maqlide malawalka run, kama maqlide malawalka run. faarax xafi mooye wax waan nabadeed rajo ka qaba ayaa beeshii laga waayey. guuldarrada colaadda ayuu u warhayey. wuxuu ahaa waayo arag tabaalaha dirirta dhab u yaqiinay. wuxuu isku hawlay dhiig sokeeye inuu baajiyo. kolkaas buu ku taliyey, mataan ciideed hadal baa ka soo yeedhay oona looga keenay. aynu run ku sugno war jiraaba cakaaro u imane oo yaanu inaga colaaddii dirirta bilaabin. dhalinyaradii mucaaradka ahayd ee dagaaldoonka ahayd ayaa sii korodhay. hub urursi
iyo abaabul dagaal sokeeye ayaa bilowday. rajadii nabadda ayaa sii yaraatay. kadib ayaa waxa gabay dhaar iyo digashaha tiriyey wiil mucaarad ahaa oo dagaaldoon ahaa oo salaado ay ilmaadeer ahaayeen. wuxuu yidhi, sidigtii fallaydh iyo haddii faydba lagu dhaafshay, inantiina kaa furan tahay, waleefayda kuma raacin, inaanse kaa fashsin iyo sidii faral ilaah. gabaygaas ayaa mataan loo keenay. qosolkiisii isla weynidaha ayuu ku dhuftay. wuxuu ka yaabay wiilka gabiyey dhiiranaantiisa iyo geesinimadiisa. wax maankiisa ka goyi waayey, uu ka seexan waayey, uu kolba ku soo celceliyaa, inaanse kaa fashsin iyo sidii faral ilaah. mataan ciideed maalintii u tixdaasi maqlay, maalintii ku afar ahayd, ayuu geedkii shirka oo la tuuran yahay isu soo dul taagay isagoo faraskiisa ku dul jooga. mataanow, maanta xaggee baad u boqolan tahay ayay weydiiyeen. wuxuu ku jawaabay inuu u socdo reerihii ay salaada ka dhalatay. wuxuu intaasi ku daray, waa lay dhaartaye, in lay dili karo iyo in kale ayaan soo hubsanayaa. nin laga quustay buu ahaaye, waayeeladii goobta joogay wax waana ah umaysan soo jeedin. hase ahaatee, kolkii uu faraskiisii kaxaystay ayaa kurun yar oo goobta wax ka fadhiyey wuxuu ku yidhi, mataanow, maxaad reer hebel ka doonaysaa? isagoo aan jawaabta meel fog ka doonin ayuu si fudud u yidhi, midhaa malagay baa ku galay. maalintii dambe goor ay barqadii ahayd ayuu ku soo baxay degmaduu ku socday. meel kale kumuusan leexane, aqalkii salaada ku jirtay ee uu soo tilmaansaday ayuu beegsaday. geed ku yaal aqalada duleedkoodana odayadii reeraha ayaa shir ku lahaa. wuu arkay, kuma uusan leexan oo dan iyo heelo kamuusan yeelanee uu garab maray. isagiina waa la milacsaday. war ninka meesha maraya ee ina hareer maray waa kuma ayay isweydiiyeen. wuu hagoogan yahay, afkuu taagayaa, labadii waran ee xaasaawada lahaa ayuu isku garaacayaa. waa duul isyaqaan uu weligood bis ag taagnaaye. cali dhan nuurjiir iyo faaraxafe iyo raggii kaleba durbo way garteen ninka garab maray oo aqaladu dhaafay inuu mataan ciideed yahay. indhaha lala sii raacay. aqalkii salaada ku jirtay ayuu dalaq yidhi. kolka maxaa harsan? 5 nin oo cali dhan uu ku jiro ayaa mar qura kacay oo qalabkoodii qaatay. faaraxafi ayaa isku dayay maalintaana inuu baajiyo dhiig sokeeye oo reeraha lagu dhex daadsho. wuxuu yidhi, ilmaadeerayaalow, wiilkaasi dhagar dhiil buu lulayaaye, yaan lagu dayan oo gardarradiisa loo raacin. ha yeeshee taladiisii maalintaasi lama yeelin, waana lagu diiday. 5 nin oo hootooyinkoodii afaysanaya ayaa aqalkii salaada ku jirtay soo hor joogsaday. salaado oo hubsatay in la kor joogo, ogaatayna in mataan uu maanta baxsanayn ayay naxdani ku dhammaatay. ha yeeshee waxay ku dadaashay inay badbaadiso. kolkaas bay ku tiri, mataanow, labadayda lugood dhexdood meel aan ahayn oo aad maanta ku badbaadi kartaa ma jiro. wuu qoslay. waad icaayaysaa buu ku yidhi. daahyadii aqalka intay xidhay ay la hadashay raggii aqalkeeda hortaagnaa. waxay ka codsatay in arrinta wadahadal iyo waawaan lagu dhammeeyo.
oo aan gacan ka hadal iyo dhiig iman. Way ka aqbaleen oo way yeeleen. Miidaamo dhagama leh hadduu malag dhawaaqayo, isagii bay dib u baryaysaa, isagii bay ku dul barooranaysaa. Waxay ka codsatay maantoo qura inuu hadalkeeda yeelo oo maqlo. Intuu gabadhii dib u dalfiyey oo raarta aqalka ku tuuray, daahyadii aqalkana dhulka soo dhigay, ayuu yidhi, salaadoy, maanigiyo ragga ciid joogaa la kala qariyaa, maxaase xigi doonaa? Waa la isku soo baxay, waa la isku soo dhowaaday, lama wada hadlin, la isma haybsan, waa dagaal foolka foola. Wareeggii horeba hoota xiimaysa ayaa naaska kaga dhacday, tii labaad baa garabka dhexdiisa kaga dhegtay. Toorey baa la isweydaarsaday oo gees baa la iskula baxay. Mid saddexaadna xiidmaha ayay dhex hushay. Fursad uu isku daafaco lama siin. Waa lagu hoobtay, dabadeedna aqalka hortiisa ayuu ku dhacay. Waa rag gadoodsanaa oo ciil qabee, intaasi kagamaysan hadhine warmihii ayay ku sii halgaadeen. Markii ay naftu ka sii baxaysa wuxuu lahaa, haddaan hooyaa, oo ula jeeday in lay dili karaba imakuun baan ogaaday. Waase goorma? Hadalkii kale ee laga maqlayn wuxuu ahaa, ilmaadeerayaalow, kolay dishee timaha ciidiiga celiya iyo gabdhaha ciideed tuurkeega caro leh isoo dulmarine. Kaasina codsi laga yeelay buu ahaa. Ragow kibirka waa lagu kufaa ee kaa ha la ogaado. Axmed Maxamed ayaa loo waramay oo waxaa lagu yidhi, mataan ciideed nimankii uu la xidhiidhi jiray oo ay salaado ku culoobeen ayaa dilay. Odaygii kolkuu cabbaar aamusnaa buu yidhi, wixii aan idiin sheegi jiray waa wax maanta dhacay. Wuxuu ahaa aayaha kibirka nin yaqaan. Oday ay waayuhu bareen isla weynida, qabka iyo uunka oo lagu tuntaa miro macaan badan inaan laga goosan, guul daran laga dhexlo. Gardarradiisii badnaa, kibirkiisii iyo aabigiisii aan laga badbaadi jirin. Waayihii uu sokeeye iyo shisheeye dadku u qaybin jiray mataan ciideed, nimankii ay xigtada ahaayeen kama aysan celin jirin, way ku taageersanaayeen. Iyadoo ay arrin sidaa tahay ayaa haddana nimankaasi magtiisii u soo fadhiisteen markii la dilay oo loo adkaysan waayey kibirkiisii xaddhaafka ahaa iyo gardarradiisiina uu ku baxay. Faarax Xafe iyo Cali Dhan oo ka mid ahaa madaxdii jilibkii uu mataan gacantooda ku baxay, mag 100 halaada ayay oggolaadeen. Ha yeeshee raggii uu ka dhashay taa way diideen. 3 nin magtood oo 300 oo halaada in la siiyo ayay ku adkaysteen. taa haddaan la yeelin waxay ku hanjabeen nabad iyo wada noolaasho dambe in meel fog laga dooni doono. guurti tulweynaha ka tirsan ayaa labadii qole dhexdhexaadisay, iyadoo doonaya inay baajiyaan dhiig sokeeye oo daata. waxay xukumiyeen nimankii ku baxay in 200 oo halaad ay mataan ka bixiyaan. reerihii Faarax Xafe Nuurjiir ay muqadimadu haayeen geelaasi way oggolaadeen, wayna bixiyeen. iyadoo ay labadii beelood ee walaalaha ahaa ee ka soo jeeday tulweynaha ogaadeen, ay sidaa ku heshiiyeen iskuna cafiyeen, ayaa waxaa gabay diradira ah magaalada Cadan ka soo diray gabyaagii weynaa ee caanka ahaa ee la oran jiray Aadan Axmed Dube oo Isaaq ahaa.
ujeeddadiisu waxay ahayd inuu isku diro si ay isugu jabaan dagaal lagu hoobtana ay foodda isku daraan. wuxuu yidhi gooshaanka dhowbay safruhu galinbaxayaane galduulduulka tegayow fariin gaaban iga geeya niman baa mataan gowracaan geed xalaal bixindhe geel lagu dhaxaa buu ahaa geed ay jabiyendhe garka dhiigga waxa loogu daray tala ay gooyendhe ma gaadine gadiid maalin bay gabax ka siiyendhe goblanye xuseen xoday muxuu goolu qali waayey galiin lagama roonee muxuu gaas u bixin waayey. xuseen xodayga uu tixda ku magacaabayaa waa mataan in adeerkii ruma. nimankii mataan ka dhintay kolkii ay tixdaasi maqleen way gadoodeen oo dhagar bay u dhaqaaqeen waxayna dileen cali dhan oo ay gowrac ugu jeedeen oo weliba meedkiisiina ku dulgeeraareen oo waxay yidhaahdeen ninkii ina dubbaa nagu kama-ay kooska cadan weyne hadalkiina soo wada kariyo kuuna yidhi yeele. dabadeedna nimankii cali dhan laga dilay iyagoo weli nabaddii xeerinaya ayaa waxay codsadeen in magtiisa la bixiyo colaaddana halkaasi lagu damiyo. ha yeeshee dhinacii kale ayaa diiday inay magtaasi bixiyaan. nin cabdi maxamed xirsi la oran jiray oo isna mataan ay ilmaadeer ahaayeen ayna ka muuqato isla weynidii iyo kibirkii inay meel ka wada joogaan ayaa ku jawaabay mataan oo midigteeda ka maqan sidee baa mag lay weydiiyaa kolka maxaa harsan. maalintaas bayna talefara ka haaday oo warmaha laysku looshaday. faaraxafey nuurjiir iyo dhammaan waayeelkii dhalinyaradii mucaaradka ahayd oo inta cali dhan laga dilay weliba magtiisana loo diiday ayaa ku tashaday colaad iyo dagaal dhaba inay galaan. ma nin aan birtu karin baa jirta ayay isku goobaabiyeen. gabayo dhiigu da-ay oo tirtirsiya ardoon wada socdaa ayuu nuurjiir ooda ka soo qaaday. gabaydaasi oo si aada caan u noqday oo lagu haqlasado waxaa ka mid ahaa faraskiisii caanab lagu magacaabi jiray kii uu kula hadlayay oo ku lahaa haddaan caynabow col iyo guluf caada kugu raagin waxaad cooboweyn tahay haddii aadan caday ka dhuubnaan haddaan meydku cagahaagay man sida cagaar seexday cadnin quuta mooyee haddaan caana laga dhaaran haddii nabadda ceelkaan ku rido cidi ka soo saarto ee aan cududahoodii isku jabin cuurka baxa waadle sida laga calool qabo haddaanu cali ka weynaan cantuu aabbahay dhalay haddaan dunidu cuuriyaamoobin ciise muuse mooyee hadday cidi noolaato. waxay tala kaga dhammaatay gacantiis inuu cali dhan ugu aaro uusan cid kaleba ku halayn. wuxuu go-aansaday cabdigii ay mataan ilmaadeerka ahaayeen hadalkii quursiga huwanaana laga keeni jiray inuu dhiiggiisa ku dhaashado. mataan oo midigteeda ka maqan sidee baa mag lee weydiiyaa. taaleydii uu maalintaasi naftiisa kula sheekeysanayay ayaa waxay ahayd marka bulshada Soomaaliyeed guud ahaanteed waxaan ka codsanaynaa dadka walaalaheena ah inaga ina kamida inala dhashay dadka inoo ku hal abuurka badan inoo ku tayada fiican inoo ku dunta fiican afkooda iyo adinkooda laga nabad galo. burburkii wadanka ka dhacay cid maanta godob u haysta aysan jirin maalin meel isbaara dhigan guri reer leeyihiin aan xoog ku qaadan cid deyn iyo hanti ay kaga maqantay aysan jirin cid ay faduul qor intay ula aadeen ay ku baabiyeen ku dilaan aysan jirin. war walaalayaalow takoorka ha laga daayo. tolaayey 10 jeer miyaan xalay soo toosay turbigii xidigaha miyaan tiriyay oo eegay
tiiraanyo ciil miyaan toos laladi waayey sidii arigtigaad cunay miyaan taaha ku caweeyey matunkaay buuxsamay sidii 10 jir awrgaara sida laanka toolka miyaan taan u dheeraaday 2 tumaal ii tumay miyaa tiirsan dhinacayga matakooriddeebaa maqliga tabacya ii yeeshay miyay tabaraday 2 qabiil toos dhex dhigi weyday balaayadan itaaba leh miyaan toosin kari waayey maalintaa isagoo aan biyo dhac u yeelin ayuu tixdii halkaa ku joojiyey nimankii u dhaaranayay nin ku jiray oo mataan isigin ayaa dareen galay wuxuu ilmaadeeradiis ku yidhi bi'i waaye halkuu gabay ku joojiyey nuurjiir kas buu u yeelay gabayguma dhammee dhexda ayuu joogaa 2 tumaal ii tumay miyaa tiirsan dhinacayga kolkuu nin inaga mid ahii uu dilo ayuu dhammayn doonaaye warhooy haddeerba ha laga digtoonaado taladaasi dheg looma dhigin lama qaadan lamana rumaysan ninba waa markiise mus ma kula koray galabtii dambe ayay nuurjiir u soo martay cabdi maxamed xirsi oo ay ilmaadeer ahaayeen mataan ayuu haylaha ka caseeyey oo dilay galabtaas ayuu gabaygii qabyada ahaa goobtaasi ku dhammaystiray oo wuxuu yidhi macabda turaabtii isku rogay waa tabtaan rabee goortaan ku taagsaday miyuu talalayoo reemay matumaatidii baa wadnaha tahan waxweedaarshay libaaxuba dhurwaa 10 kun tulud ka qaataaye ninkii farayaraan igu tuhmay tala ka hoostaaye walee aniga waa lay tixgelin tiirinimadayda mataan oo jifadii uu ka dhashay u taqiinay boqorkii ciideed waa tii la dilay cali dhan oo isna laftii uu ka dhashay ay halyey u aqoonsaneed waa tii la raacshay dabadeedna cabdi maxamed xirsi waa tii loogu aaray nabad lama helina waa la kala irdhoobay hoog iyo baawixii xigayna laguma taamilo qaadan dagaalo hor leh ayaa fooda la istaray dhalinyaro fara badan oo barbaara ayaa hadda loo waray dumar fara badan ayaa saay loo xiray oo raggoodii la laayay caruur fara badan ayaa agoomooday nasiib darro habkani waa hab ku racan oo ay soomaalidu ku dhaqanto waana habka ay ugu jeceshahay inay ku dhaqmaan waxaana caddayn buuxda iyo daliilba kugu filan wakhtiga maanta aynu joogno ayaa warbaahinta soomaalida ka maqlaysa tuulo hebel waxaa ku dagaalamay 2 beelood oo walaala ah iyagoo isku laayay dhuldaaqsimeed ceelbiyood carshina aana godoba iyo aarsi aargudasha bal isbarbardhig sheekadan oo dhacday 200 oo sano ka hor iyo gumaadka iyo diriirta maanta dalkeena ka taagan jawaabta kuu soo baxdana adaan kuu daayay